doonow saacada laga bilaabana waxaa ka mid tihiin ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Aadan Gurey taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada qaranka Soomaaliland General Muuse Jaamac Dalaf oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku marayay deegaanada bariga fog ee gobolka Sanaag ayaa ka qayb galay munaasabad lagu qarameeyay ciidamo ka mid noqonaya ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamadan la qarameeyay ayaa watay gaadiid dagaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland General Muuse Jaamac Dalaf iyo wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Gurey ayaa la hadlay ciidamadan la qarameeyay waxaana ugu bushaareeyeen in hadda laga bilaabo ay ka mid yihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka kan waa ciidan la qarameeyay hadda ayaanu qarameynay baabuurtan aad aragtaan ayay wataan ciidanka hal dir ayaa halka lagu qarameeyay maanta laga bilaabo waxa la idinka rabaa waajibaadka ciidanka qaranka meeshii la yiraahdo imaado baad imaanaysa bartii la idin cayimay baad imaanaysa bisha kowdeeda garaamkiina waa leedihiin iyo xuquuqdiin waxaana ku biyacabtaan liiska aanu qaadanay oo ciidanka oo hadeer aanu qaadanay waxa weeye sidaas maanta laga bilaabo qaramaysan yahay saasi ku qaramaysan yihiin saasaynu isku ognahay guul baan idin rajaynayaa dhalinyaro yar oo soo tababaratay baa weliba u badan tihiin oo kulligiin tiinsaan filayo rag dhalinyaro oo soo tababartay tababarra soo qaatay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin saacadda laga bilaabo ciidanka waa la qaramaynay saasaa inoo ballana generaalka idin dambeeyay wixii waajibaadaha ciidan leeyahay saacadda laga bilaabana waxaa ka mid tihiin ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranka saacadda laga bilaabana xuquuqda ay leeyihiin baa leedihiin waxaan leenahay markaa waajibaadka shaqo ee la idinka baahdo waa inaad u diyaar garoodaan idinka iyo gaadiidkiinuba saasaa la idinka doonayaa waxaan filayaa wax kale iyo dardaaran kale waajibaadka ciidanka ayaad ka qaadan doontaan saasaa insha Allah taala inoo ballan ah